سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأنا wanaagsan asxaabteena qaaliga meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkani waxa uu ku saleysan yahay waxyaalihii saaka ka dhacay suuqyada adduunka qaasatan suuqyada online-ka laga shaqeysto maanta oo isniin ah oo ku asteysan tahay 12ka bisha May sanada 2025 Mareykanka iyo Shiinaha waxa ay ku dhawaaqeen heshiis ganacsi oo muhiim u ah kaasoo lagu yareynayo culeysyada dagaalka ganacsiga u dhexeeya labada dal heshiiskan oo lagu gaaray shir laba maalmood socday oo ka dhacay Geneva ayaa dhigaya in labada dal ay si weyn u dhimaan cashuuraha la isnaafsanayo muddo 9 maalmood sadarteed qodobo aad iyo aad u muhiim ah ku jira marka heshiiskan qodobada muhiimka ah heshiiskan ku jira waxa kamid ah Mareykanka waxa ay hoos u dhigeen cashuuraha alaabaha Shiinaha laga keeno 145% hore u jirtay ayaa waxay hoos u dhigeen 30% halka Shiinaha waxa iyagana hoos u dhigeen cashuurahan kol hore waxa ahaa 125% waxayna hoos u dhigeen 10% muddada heshiiskani oo soconaya waxa uu noqon doonaa ilaa 9 maalmood iyadoo labada dal ay isku afgarteen in ay sii wadaan wada hadallada si loo gaaro heshiis waara saameynta dhaqaale marka oo suuqyada ku yeeshay maxaa kamid ah marka heshiiskan kolkii uu soo baxay heshiiskan ayaa si degdeg ah u saameeyay suuqyada maaliyadeed ee caalamka suuqyada saamiyada ee Mareykanka Aasiya iyo Yurub ayaa kor u kacay halkii qiimaha dahabka uu hoos u dhacay sidoo kalena dollarka Mareykanka ayaa xoogeystay marka iyadoo lacagaha uu dollarka ka soo horjeedana ay dhulka galeen aragtiyada marka labada dhinac laga leeyahay suuqyadani xogayaha maaliyadeed ee Mareykanka ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay talaabo muhiim u ah labada dal xiisadaha ganacsiga sidaas loo hakan karo dawladda Shiinaha ayaa sidoo kalena ku tilmaamtay heshiiskani maanta dhacay mid aad iyo aad u muhiim ah oo horseedi kara in wada shaqeyn dheeraad la sii socdo heshiisyadani maxay suuqani aan ka wada shaqeynay forex ay faa'iido ugu jirto maxay tahay faa'iido ugu jirto waxa weeyaan haddii labadan dal waa laba dal oo isku haysta quwadda dunida haddii ay ganacsigoodii ay sidaa ku wada heshiiyaan xasilooni ayaa la dareemayaa bisha Abriil qof walba suuqani ka shaqeysta waa uu garan kara xaaladda meesha ay mareysay sida awgeed haddii aad aragtid in walaac uu jiro dhanka iyo dhaqaalaha suuqani kaliya ma ahan wax technical ku saabsan wadamada dunida fundamental dhaqaalahaantooda waxa weeyaan aad iyo aad ay qayb uga tahay inaad maanta aad wax indhayso aad tiraahdo technical ahaan baasaan iyo saan aan u arkaa waxa ka baaxad weyn fundamental ahaan dhaqaalaha suuqa waxa hor u wada dawladaha sida awgeed waa arin aad iyo aad wanaagsan oo qof walba suuqani ka shaqeysta oo ku farxayo saad aragteen suuqa crypto inuu sare u kacay BTCD ee 105 sii gaartay marka suuqani indhaha lagu hayo wixii cusub oo soo kordhana leedinkii macluumaada waan idin la soo wadaagi doonaa aad baad mahadsantiin baada Berlab FX